waxaan ilahayd nina weydiiyey arrinta khilaashka haddaad doorashada ku guulaysa leh 1978kii 1978 yaa anwar saadaat oo markaas ahaa madaxweynaha masar yaa wuxuu saxiixay heshiis la yidhaahdo Camp David Agreement 1978kii kabacdi 79kiina wuxuu saxiixay heshiis la yidhaahdo Peace Treaty oo asagii Israa'iil saxiixday dowladihii carabeed oo dhan waa ka soo horjeesteen in Israa'iil heshiis lala galo waa la socotaan anwar saadaat waa baxay Tel Aviv uu ka degay heshiiskii waa soo saxiixay carab oo dhan waxaa la yidhi inta la fadhiistay hal la muqaadaceeyo boycott waa hadda qadar lagu haayo 40 dowladood ku hayaan hal la muqaadaceeyo la yidhi dowladdii Soomaaliya markaas waxaa madax ka ahaa Maxamed Siyaad Barre dowladda Soomaaliya waa diiday waxaan la safanay tiri Masar waa la isweydiiyey marka carab oo dhan dhinacay marka waa carab oo dhan hadda ma aha deel ma abaasha markaas sababtoo ah Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka soo baxay markaas dagaalkii 77 hubka uu ku dagaalamayay iyo diblomaasiyadda iyo loobiga iyo wax dhan waxa uu sameynayay dowladda Masar jawaabtan ku siinay ninka odaygaas asweedi waxa waaye go'aan arrimo dibadeed marka gaarayso waa inay maslaxadda qowmiga ku dhisan tahay maslaxad shakhsiyaad adiga ama xukun kula jooga ama adiga wiilkaaga ama hawadaada inay ku dhisan tahay ma waa inay national interest ku qotontaa taas kaliya ma waa inay inta soo istaagtaa aad justify garay kartaa dadkan u sheegi kartaa oo dhigi kartaa go'aankan waxaan ku gaarnay 1 2 3 4 maslaxada Soomaaliyeed ku jirto annaga intaan ognahay kulli dadka carabta aad u darsaanahay siyaasadeeda Soomaaliya taariikhdeeda siyaasadeed haddii la fiiriyo oo carabta kala dhaxaysa saddex dowladood traditional ally oo ahaa weligeed ama waxaan la yiraahdo xilfiga taqliidiga saddex dowlad oo ahaa maxamed waa isixi kara haddaan qaldanahay koow waa Masar labo waa Sacuudi saddex waa Imaaraat madaxweyne maxamed cabdullaahi ka hor iyo kadibba saddexda traditional ally u ahaa Soomaaliya waa saddexdaas weligeen annaga realmkeena ama daa'iradeenna ama cilaaqaadkeena wax qadar la soo ma gelin hambaray soo gashaa qadar waa markii ay muqaawamada daata ana aajiri warsada haddii aan muqaawamo tahay oo qoray sidatid oo dagaal ku jirtid ahlan wa sahlan waa ku caawinaya qadar aniga sheekh shariif u tagnay asagana waa jooga hadda ka marqaati keeka wasiirka xiriirka caalamiga ahaa sheekh xamed aan u tagnay saaxiibayaal wuxuu yiri jabtarkiina waa xirmay وشيخ ودي مركي أن جهده وانا عاوزي هذا الدولة أنها يسوي حجران كان واحد مودا أنا السلام عليكم حزب الإسلام إيو الشباب يقول يجين ما هذا عي نوع ذا أساسا نيجر كدولة قدر أساسا طالبان حافظ كل هذا قدر حزب الله حافظ كل هذا حزب المحكوشة حماس أخوان المسلمين هذه وحي جبهة أو أنا نستد أكثر اسمح لي هذا يقدر كشقيستها هذا الدولة نغطي اسم تقانين marka aniga waxaan dhihi lahaa national interest Soomaaliga meesha yaalo yaan fiiri lahaa taasna waxa ku saleysan gar raali ahaada waxaan fiiri lahaa dhaqaalaha aan ka helo wadamada dariska aan nahay 250 kun oo xoogsataa Soomaalida ku nool Sacuudiga 300 milyan xoolaha u dhoofin sanadkii ka helna haad currency-ga meesha laga helo waa meesha labaadna waa xawaalad dibadda ka timaado Imaaraadka soo marta ani marka waxaan fiiri lahaa maslaxada qofka Soomaaliga meesha ku jirto ma aniga maslaxadii xukunka jooga markaas meesha xogaa yaroo kaashka aan ka helo ma waa ma santii